xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Faarax Cabdi oo warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu tacsi u diray gudoomiyaha gobolka Sool Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii shalay qarax lagu geystay magaalada Laascaanood waxaanu dhanka kale uu dhaliilay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland hadlaya magaca gudoomiyaha ka hoggaanka xisbiga guddiga fulinta jeeka golaha dhaxaba waxaan la wadaagayaa tacsi qoyskii iyo qaranka guud ahaan Somaliland ba ee uu ka baxay ee uu shalay shilka argagaxa ee argagixisnimada ee kaga dhacay magaalada Laascaanood gudoomiyihii maxkamadda gobolka Sool mudane garsoore aadan Sheekh Maxamuud oo Ilaahay uga baryayno marka hore inuu naxariis janno ka waraabiyo waxaan aad iyo aad uga tacsiyadeynaa dhammaan qoyskii iyo guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa kale isaga laftiisa tacsi u direynaa isaguna ku geeriyooday magaalada Ceelaf Weyn nin sarkaal ah oo ka tirsan ciidanka booliska Somaliland aadan xasan aadan la yiraahdo oo ka tirsan ciidanka booliska Ceelaf Weyn oo ay shalay ku dishay isagana gacan ka xaq darani oo ay kaga dhacday ciidanka booliska Somaliland walaba arrimood runtii suwan arinta koobaad ee ah taa gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka Sool wana nasiib darro runtii Somaliland u soo hoyatay maanta oo ugu inagu ah oo aan hore u jirin oo ka dhacday maanta Somaliland dhacdo la mid ah aanay horteed uga dhicin runtii waa nasiib darro murugadeeda leh oo Somaliland maanta la kowsatay waxa ay Somaliland bulshada caalamka iyo guud ahaan adduunka ay ka ibi jirtay laba qodobka koowaad oo ah nabadgelyada aynu ku naaloono runtii oo ay kaga duwanahay guud ahaan Geeska Afrika iyo qodobka labaad oo ah doorashooyinka xortii xalaasha xisbiyada waxa maanta dhaawac weyn soo gaaray guud ahaan amnigeena Somaliland iyadoo ay mas'uul ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo ay dayacday wasaaraddaasi dhammaanba amnigii muwaadiniinta iyo mas'uuliyiinta ee kala duwanaa waa dhacdo runtii xanuun badan oo maanta inagu cusub waxa gudoomiyihii gobolka Sool ee maxkamadda gaadhigiisii loogu rakibay bam taasoo ah arin anfariiri argagixiisa la runtii arrinkaasi si weyn ayaan u cambaaraynaa ka xisbi ahaan waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha inay ka soo saarto war cad oo rasmi ah sidoo arrinkaasi u dhacay cidda ka dambeysayba waxa maragmadoon ah inay wasaaradda arrimaha guduhu ay ku fashilantay guud ahaan amniga Somaliland oo ay noqotay wasaaradda arrimaha guduhu makhaayad loo shaqo tago oo lagu sheekaysto aroortii lagagana mashquulo shaqadii qaranka loo qaban lahaa sheeko iyo waxa aan loo dirsanin in laga shaqeeyo wasaaradda arrimaha gudaha taas waa qodob waa taa gudoomiyaha waxa yada xusideeda mudan dhacdooyinka ka soo noqnoqda runtii booliska Somaliland oo ka dhexdooda taasoo ah in had iyo jeer la yiraahdo askari dilay askari ba xabad ku fakatay askari kale ka fakatay askari ba asagoo qolo cid ku riday rasaas ku riday askari kale xabad kaga dhacday waxay ku tusaysaa tababar la'aanta iyo aqoontooda ciidanimo oo aan kor loo qaadin runtii waxaan ugu baaqanaa in ciidanka la tayeeyo ciidanku waa hay'adda quraata ee dadka amnigiisa sugaysa marka iyagu amnigooda sugaan ee ay kooda hagaajiyaan bay ka ummadana hagaajin karaan Cabdiraxmaan Ibraahim dalka TV Hargeysa